kadib burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya Soomaalidu waxa ay faaruqisay caasimadda Muqdisho oo qof kasta oo Soomaali ahina waxa uu ku laabtay gobolkii uu hore uga yimi maadaama dowladii dhexe ee Soomaaliya ay meesha ka baxday xilligaasi gobol kasta waxa uu isku dayay inuu samaysto ismaamul hoosaad buuxiyo booskii dowladda hase yeeshee waxa ka duwanaa maamuladaasi oo dhan midkii lagaga dhawaaqay magaalada Burco ee la magac baxay Somaliland kaasi oo lagu sheegay inuu yahay maamul ka madax bannaan jamhuuriyaddii Soomaaliyeed maamulkan cusub waxa la sheegay inay ku bahoobeen qabiiladii iyo gobolladii xorriyadda ka qaatay Ingiriiska la iskuna oran jiray gobolladii waqooyiga gumaystuhuna u yaqaanay Somaliland maadaama maamulkani uu salka ku hayay jabhaddii SNM oo xurgufo iyo dagaalo badan la gashay gobolada SSC horena loo kala firsanayay kala duwanaansho taariikheed ka soo bilaabanaya dhamaadkii qarnigii 18aad sidoo kalena ay jireen xasuuqyo ay jabhaddu ka geysatay qaybo kamid ah gobolka Sool duulaan iyo qasaare fara badan oo ka horeeyay baa jiray oo deegaanka dadkan Sool Sanaag iyo Cayn ku dhacay baa jiray gobolka Buuhoodlo oo kale deegaanka xudun ku hareeraysan Erigaabo saf dheer bay ahayd arintaas ilaa Jidbaale iyo hadii la ku rooyahay dhul guriga laamiga waxa soo dhan dagaal xoogan baa ka dhacay oo boqolaal nin ama aan dhihi karo kumaan kun nin baa lagu dilay oo xoolaha lagu dhacay oo waxyeelo badan bay geysatay jabhaddii halka ka timi maanta se nimankii xukumi jiray oo waxa soo dhibaato geystay hadal kale ku hadlaano kuwa nool oo hadeer Hargeysa iyo Burco jooga waa dadkii genocide ka geystay dhulka aan tilmaamayo khaasatan Nugaal ka geystay area xudun ilaa Erigaabo ilaa guriga Jidbaale iyo la yiraahdo Doclaha ragii ka geystay maanta dadkan waa joogan ee jabhada ka tirsanaa oo dumar iyo caruur laayay oo ragaan hubaysnayn laayay oo hanti badan iyo xoolo badan dhacay oo jabhadaas ku magacaabanay ilaa jabhad organization jiray ahaayeen iyagu dadkanina dad shacab ah bay ahaay saasay arintaas u ahay ugu horeyn boodayaashii iyo waxgaradkii reer SSC ee ka qayb galay shirkii Burco waxa ay kala soo laabteen natiijo la'aan iyo hungo shacabka reer SSC iyaguna waxa ay diideen guud ahaanba wax kasta oo ku saabsanaa maamulkaasi kaasi oo ugu horeeyo dastuurka Somaliland ee sheegayay inay Somaliland tahay jamhuuriyad ka madax bannaan jamhuuriyaddii Soomaaliyeed xilligaasi ayaa aqoon-yahano iyo waxgarad ka soo jeeda deegaanadaasi waxa ay isugu tageen magaalada Kismaayo waxaanay go'aamiyeen dhismaha maamul u gaar ah deegaankan waxa lagu dhawaaqay shirweynihii Boocame 1 iyo sidoo kale Boocame 2 shirweynaha hore waxa loo doortay Jaamac Cabdilaahi Shuuriya halka midkii labaadna lagu doortay Maxamed Cabdi Xaashi Soomaalida ahaa maamulkii dawladda dhexe markuu burburay ay isu bedeshay Soomaalida dareenkeedii oo dhan oo goboleys iyo qabiileys isu bedelay baraxla qabiil walbana dhulkiisii ay noqotay inuu wax iska weydiiyo marka waxa jiray niman aqoon-yahano iyo madax hore dawladda iyo saraakiil ciidan iyo niman baa jiray magaalada Kismaayo ku shiray oo 50 nin ah nimankaas waxay is weydiiyeen aragtida dhulkan gobolada Sool iyo Sanaag hadii dawladii dhexe dhacday uu yeelan karo iyo maxaa inoo isweydiina maxaa inuu yeelaa maxaa mustaqbalka dhulkeena iyo dadkeena kaga talnaa inteenan u baahada Kismaayo isku heshay oo wax garada nimankaas waxay yiraahdeen mar hadii nimankan la yiraahdo jabhadda SNM hadday gobolada waqooyi qabsatay gobolada waqooyi dad badan baa degan dadka degan markii horena xisbigii SNL la oran jiray ma ahayn hadeerna SNL ma wada aha waxa iska laba garab baa iska jiro SNL iyo niman USB la oran jiray baa jiray marka 60meeyadii doorashada iyo xorriyadana iyagu gudoomay oo u sabab ahaa dhinaca waqooyiga xisbiga yar NUF la yiraahdo wataan hal qof baa codki ka soo baxay muhiimad ma lahayn laakiin waxay yiraahdeen
حزب USB وين السعودية بيراده مرة دي السنة محقق قبضتي أنا USB بنقولنا مركا وحيكون لسان حزب USB لهذا يدي أصير نوعين هذو وحي حشين نين سياسي هو دولتي هراء ريت كهيد كتشريو دولتي حسد بران كتشرون ولورن شري محمد حاش محمد حاش الله يدورتين وحنا مرينا يا عدنا خلدنا إن اللي يقولي قدومي محمد عبد الحاش راجل قدومي حيجنا نين اللي يرادو إنجنير حيرنا وعين عيسى عبدي خليج كأيو جروبية يسولف لسانه خليج كان نمن با مضحكها نمن كاسو waxay go'aansadeen inay dalkii tagaan akhiran dalkii markay yiraahdaan tagnaan dalka waxay u soo direen gudihiisa nin loo oran jiray Jaamac Abdullaahi Shuuriyo wasaaradda hay'adaha tacliinta sare ka shaqeyn jiray agaasimaha waaxda deeqaha dibadda ama scholarship isku xisaabaad u taqaanay buu markaa haystay wuxuuna ahaa qolihii dowladaha Soomaalidu ay shahaadooyinka caaliga dalka Mareykanka 78 iyo 77 ku diyaariyay dalkana waxa sii joogay dad kale oo iska diblomaasiyiin marka kuwaasuna gudiyo ayay sii dhiseen gudiyo dhiseen kuwaas bal magaalada inaan fawd ka dhicin bay gudiyo u dhiseen 5 nin baan xusuustaa oo gudiyadaas ahaa haddii qoladii USB-du ay timid shir baa lagu qabtay Boocane oo ay ninkan soo direen gudaha soo direen Sheekh Cabdullaahi Shuuriyo loo oran jiray sida la maleynayay qoladii USB-da koonfurta ka timid baa ku guuleysatay ninkii ay soo direen oo nooc ma taageero haystay qarsoon hoos baa gacan dhiib iyo qorshe iska jiray Sheekh Cabdullaahi Shuuriyo loo oran jiray si doorasho caadi ku soo baxay dareemada qabiilka Soomaalidu way iskaga jiraan tanaasulaadiya jira dhaqamo badan oo Soomaalidu ay leedahay baa jira oo duruufto ay marba duruufto ay fikiraan waa loo tanaasulay ragga qaar la tartami kara lahaa way isaga tanaasuleen ninkaas meeshuu ku soo baxay gudoomiye ku xigeen waxa ku soo baxay nin Axmed Cabdi Xaabsade qolada kontonka ah wax ka dhistay marka hore USB-da Kismaayo ku dhistay oo kamid ahaa kadib nimankaas shirka maamul bay ku dhiseen fiican oo golaha ismadu ugu sareeyaan golaha uqaash ku xigo iyo golaha maamulka shirka Addis Ababa way ka qayb galeen waa aad baa loo amaanay dhismahaas shirweynihii Boocame waxa uu baray Soomaalida inay iswaafajin karaan haybta iyo maamulka sidoo kalena waxa uu xoojiyay doodii odhanaysay halka Soomaalidu inuu ku jiro in hoos laga bilaabo ee aanu ku jirin shirar dibadda lagu qabto iyo amarro shisheeye haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay noqonaysaa sidee ayuu sidaas si fudud ugu fashilmay shirweynihii Boocame isla markaasina loo waayay natiijadii laga filayay shirkaasi uu dadka kaga hadhay oo dhibaatada sababay yay ka mid tahay dadka waxaan oran karaa shirka qabanayo qaban qaabinay ayaa ugu yaraan 2 qaybood u kala qaybsana qaybi markii horeba dana kale iyo ujeedooyin kale ayay rabtay in dadku u soo ururo qaybina lillaahi ilaahi hortiis iyo in dadkan wax u qabsoomaan bay u soconayeen sababta markii dambe fashilisay in maamul baa la sameeyay muddo badan baa shir loo fadhiyay Boocane 1 Boocane 2 Boocane 3 baa ilaa xitaa la soo gaaray mar walba arintu waxay ka fashilmaysay dad dana gaar wata oo dadka deegaanka ka tirsan oo aan la iska fahansanayn waxa qabyaalada la yiraahdo iyo waxay baabiisaa siyaasadda dhaqan dhaqaale bay waxa qabyaalada la yiraahdaa baabiisa adigoo arkayo qofku inuu qaldan yahay ama kooxdaas ay qaldan tahay ayaa waxa dhoomanad garaynaya oo hadii la ku roon yahay laga doorbidaya hebel reer hebel weeyo oo waxa laguma oran karo oo hebel iyo hebel weyna ka xaroonayaan oo dana gaar ah aynkaas oo kala dantii dadkuna sida ay ku luntay horta waa sida waa maamul baa la sameeyay in fact dhamaystiran baa la sameeyay waxana xusaya Soomaaliya waaga halka maamulka laga bilaabay qabaa'il Soomaaliyeed oo deegaankooda ka bilaabay shir ay maamul ku samaysanayaan dadka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn baa ugu horeeyay ayaan darrose waxay dhacday
markii maamulkii dhammaa ee lagu tabcay ee hantida lagu bixiyay ee intaas soo bilood loofay ee dadka deegaankaas ay marti geliyeen ee la iskugu yimi majaha loo bixiyay oo afka ciida loo daray oo laga doorbiday in waqooyi loo kaco waqooyi in la aado dad la heshiis la oo markii horeba xagga ka soo jeeday baana arinta tan ka shaqeeyay guuldarradu halkaas ay ka dhacday waana loo naaftayo waxa loogu naaftay wixii waaga samaysmay de maanta dadka kan faa'iido u noqon lahaayeen faa'iido weyn oo aan la soo xisaabi karin ama la miisaami karin bay noqon lahaayeen waa taa wali waa arintaas way furan tahay waa arin furan oo aan wali xidhmin ilaa maanta dadka deegaanku dantoodii gaar ahaaneed ama dhaqan ama dhaqaale ama siyaasadeed maaha mid gacanta ugu jirta waa mid ay dad yow kale maamulayaan oo ay u sahlayaan dad iyaga ka dhashay ay u sahlayaan iyagoo dantooda gaar ahaaneed eegay qoladii USB da la oran jiray ee madaxda ahayd ee ninka gudoomiyaha Jaamac Abdullaahi Shuruuci iyo beesha dhulbahante Boorame tageen markay Boorame tageenna qolada dhulbahante waxay aqlabiyad ku diideen calankii iyo lacagihii iyo goon istaagii iyo dawlad sheegadkii adigu shirkiisaas kaga baxeen haddaan dadka been laga sheegan ninka gudoomiyaha u ahaa markii hore meesha uu ka baxay Djibouti uu tagay waa laga helay hadalkiisa idaacada BBC-da soo anagu ma aanu iman hadda hawlahan Boorame ka jira ee dawlad gaar ah iyo nabadan u nimid meesha iyo in loo noolaado warkiisa BBC waa laga helay ninkii shirka bacaan lagu doortay waa ka qayb galay shirka bacaan dhammaan gobolada dadka beesha SSC oo dhan waa ka qayb gashay uqaasha garaadada shirka Boorame dadkii burcna waa ka horreeyay laakiin ka Boorame ku aadaneed qoladan boocaan waan kadibna 70-kan shirkaas way ku diideen calanka iyo lacagaha iyo qolada iyo goonigosadka ay soo bandhigeen waa ku diideen kiinka gudoomiyaha Djibouti baad kadibna BBC la hadlay anagu fikirkan maan aha fikirkan qabno nabadan u tagnay meesha isaga ninka ku xigeenkiisa ahaa shirku ku xaray Axmed Cabdi Xaabsade kadib isaga wuxuu laga dhigay waxa la yiraahdo gudoomiyaha baarlamaanka waxaas marka hadii ninka gudoomiyaha ahaana uu shirki diiday oo ka baxay gudoomiyaha xigeenkiina uu gudoomiyaha baarlamaanka noqday Somaliland nimankaas way dhaarteen masjaaci ku dhaarteen waxa fashiliyay guud ahaan nimankii ku haray meesha Hargeysa ku haray rag badan baan ku haray laakiin gudoomiyaha xigeenku ma muhiim gudoomiyaha xigeenka laba qof kala qaatay xilliyadaasi adduunka waxaa ka soconayay shirar iyo isuimaatina ay Soomaalidu isugu imanayay kaasi oo lagu doonayay soo celinta rajadii iyo qarannimadii Soomaaliyeed waxaana Cabdilaahi Yuusuf oo xilligaasi rajo xumo kala soo laabtay shirkii Qaahira iyo Garaad Cabdiqani iyo madaxdiisii kale oo saluugsan qaabkii ay u dhaceen shirarkii kala dambeeyay ee Burco iyo Boorame ay isla qaateen dhismaha maamul ka kooban 5 gobol kuwaasi oo kala ah gobolada Sool, Sanaag, Mudug, Nugaal iyo Bari iyo sidoo kale degmada Buuhoodle oo iyadu ka tirsaneyd gobolka Togdheer qolada USB aan kula waaga waa la asaasay gudoomiyaheeda guud Maxamed Cabdi Xashin Nairobi buu fadhiyay hadduu Nairobi fadhiyay Cabdilaahi Yuusuf ayaa wuxuu ka reebay shir Qaahira ka dhacay shirkaas Qaahira ka dhacay ee Cabdilaahi Yuusuf ka reebay ninka gudoomiyaha USB Maxamed Xashin la yiraahdo oo uu waliba uga digay inuu san faa'iido ka soo qaadi doonin ayaa waxa dhacday inuu Cabdilaahi Qaahira ka soo carooday Qaahira marka soo caroodayna ishaysiga Itoobiya iyo Masar uma waaga jiray wuxuu yimid Addis Ababa uu yimid isaga aadan gabiyo loo jiray waa dhinteen waxay ku heshiiyeen Jubbaland baan dhisaya hadaan ahay aadan gabiyo adiguna waxa dhistaa waxa la yiraahdo Puntland Maxamed Cabdi Xaashibu Nairobi uga yeeray ma hubo laakiin kullay asaaskii waa isagu kala tashaday oo yiri adaa iga saxsanaayo Qaahiradan iguma jirin waayo waxaan garanayaa 3 bilood ka hor Maxamed Cabdi Xaashi Lascaanood Puntland kaga dhawaaqay oo yiri maamul baan xalan garowa ka dhisanaa maamul weyne magaalada waxa soo galay Maxamed Cabdi Xaashi oo gudoomiyaha USB haddana loogu doortay Boocanatu
وإنتان هالك جاب كتشري وأنا الإسويدينو محمد عبد الحاشي مركي قلديسي جودها وكسو وجهي أي سكفر شلنتي ودعاري أي ودي كروين هاوش قارهن كان بروفيسور كان عبد الله الشري لورنشري ومركز شامعها عموديو ما أمر حسب الله أنه مر باليش يصيرنا بكديدي ودريمي يصير وحول عن إنه دبك السوق وحلوقة يره هذا الدولة جايو ولا بكون إنجليز كي بقى عادوا يعني مركون أنا ذاك الشيخ كبحبها كد من شعد عمودي شعد هرجيسة بفولش كده ذاك وحكي أساسي بها ويا مركون شهادة كويستي أساسيت كجامعات كإسكولة ده وحلو إنه كروكول مانجمنت تبو ما شوت سلوير شعد له كسوقات مركا قفك كوبادي أرمها جامعاتها وقوي الصومالي تشوقها يا أساس كلامية ده دول زيادة برا واحد زوم كشغل تروح عنا عين هاي الركيشن كم شغال مركز وسكدنا يستنيك على الظروف تكورتيت مركز عبد الحاشي صار نقضي قدوميها يو اس بي على قد جاي لا هاي وما بهلنا النسوش ولا محل ما تسوي ما تعطى ما نرفض مقدم هاي هي لو أنا الحضارة ولا هجاك سرين يا هذا مدرب isagoo gudoomiyaha USB haysta ayuu markaas go'aansaday inuu Cabdullaahi Yuusuf maamul la dhisto oo magacan maamulka Puntland inuu la dhisto Cabdullaahi Yuusuf halkaan buu yimid shir buu ku qabtay shirka anigu waa tagay aan shirka uu ku qabtay magaalada wuxuu ka sheekeeyay Soomaaliya duruufta ka jirta xamar duruufta ka jirta iyo Hargeysa duruufta ka jirta min inaan hadda anaga noogu jirin raacistooda xamarna ma bagaano حمرنا واحد نمكن السي كسمية ولا أركا نمكن قانون قاصد كسمية أنا وين أركنا مركا واحد نسكت قاصني بل إنا نقولة تنبوت لأنت كان لسنه وعبد الله يوسف حمرنا كسر قوستي برضه إنه ملك يدوم مامل كريس وسومالي ده برجس وقوليها بيش عالم كن إيوه ضدك أكاديميين تأيوه مامل كهرجة كوتشري إيوه عقال إيوه مع الكواس عبد الله يوسف إيوه وإسرائيل لحدن كتشوجي وحي مدح لحدن كتشوجي وحي كدود يشترون لما فكروا دولة نمط الصومالية محلقة دقة from bottom to top وحلي هذا ما أنت قلت لقص أساسا كرلا سارة مثل دولة نمط الصومالية هذا السنة الخاص بيو وحلقة صار لسا from top to bottom مركا فكر كا from bottom أنت قلت لقص أساسه قلت إلى حق السريع وحوسه ما لديه رسبوا عنوان وواح قرن أو دوكيمنت اللي هو وياه بطرس قالب أبوك أمانة مركز سبب فردين سجاشن سد عدو يجري ورني ما كان قبل سوري سنة كيمت بياب له ما عمل كود رقم كود يسوق يستوي واحد قبله ما نتاس سنة كأنه بكتير واحد بروفة مركز عبد الله يوسف حقوق عن أي فكرة دي أهيد from bottom to top أنت بقول له أنت شنطة قبله مقعدة غيرها مسكمتك أبان للسيا tusoo wada duub Puntland horta tii u horeysay la aas-aasay oo madaxweynaha Cabdullaahi Yuusuf ka ahaa maamulka dambeeya ma ay yeelan waan xaqiijinaya waan cadeynaya wixii ka dambeeyay reeraha isu bedbedelayo haystay oo xukumayay oo wax dawladnimo ah oo meel ka soo galisay ma jirin shakhsiyaad baa maamulanay ciidankii Cadda Muuse ciidankii Xiif Calitaan ciidankii hadda ku rooyay hebel kale ciidankii Cali Abdi Awaare ciidankii Faroole ciidankii Maxamed Xaaji Aadan ciidankii waxaasa laga shaqeynay ciidan midaysan oo Puntland yeertay iyo maamul madaxweyne iyo kala dambeyn yeesha Cabdullaahi Yuusuf baa u dambeeyay hadeerna male weligeedna yeelan mayso waan cadeynay ilaahay baa iga sareeyay waxaan ustaa maalintii garad Cabdiqani ninkii gudoomiyaha gobolka u ahaa oo Maxamed Guhaad la oran jiray oo iska xanuunsanay hadeerto Allah caafiye محمد عبد الحاشي ما يدي حاجة وحوها أنا توجو قدومية كأها منا مركا ما هين مملكة يو اس بي وسكت مرة دوران وده محمد عبد الحاشي مقعس كوسو حري أيو قدومية وها محمد جهاد أيو صباح دي الشركة أنت اللي عادم بقرات عبد الغني الشركة كل ما محمد جهاد أنا جوز عن السكة مركز سوري قرأ هذا حق الناس وحكى لسنا مركز سوري ها وحوي ده حقا أنا قاعد حين نبي هذا يسكت ده ينقل إنه نجيب بودان شوك بنكورنا يا بيت هذا قرن بودا حقا إنه بودان شوك ما كان مسكب الدبلوماسية وحلو آخرية يعني أسلف في أسنة ما يضطر معارض كهواء هاين لكن أنا قوم بقول حيني مركز محرمه بتشوك بنكورنا هذول حقا كذا فكر هذا عبد الله عزاز أصله عبد الله وخلاف محمد أبشر ويري قبل هذا سؤال يسألنا الظروف الدولية كترته
saddexdan gobol ma dhisnaa oo gobolladana bal hal beesha caalamka kala tashanaado Cabdullaahi Yuusuf baa diiday waxa la oran karayaa duruuftan dawliga ah ee gobollada Sool iyo Sanaag in laga dhigo meel distributor ah oo dawladda Ingiriisku ay ka dhaadhicisay dawladaha qarbiga ay kale oo xilliga waxa meel distributor ah laga dhigay oo waxa la yiri waa dhulkii darfishiska iyo waxaas ku jireen labada maamul midna yaan lagu darin si rasmi ah ilaa iminka saacadan aan joogno waa tabti gobolladan kuwan iyaga xoogan iskaga qabsadeen oo dawladda un baa backing upgrade iskaga qabsado oo iska sheeganaya golaha amaanka iyo hadeerta naaw distributed area loo yaqaana naaw hadii golaha amaanku yimaado waxay isku ogyihiin beesha caalamka tirsan looga distributed area ka gelisaa marka maxamed baa ku yiri Cabdullaahi Hawaalin Sool iyo Sanaag waa distributed area ka jooji isna ma yeelin Cabdullaahi wuxuu kiciyay dadkii kadibna shantii gobolba in la dhiso baa lagu heshiiyay Cabdullaahina wuu ogaa arinta laakiin wuxuu ku buuxsanay maxaa jirna iskaga karbaashay de kolena waa ku buuxsanay qawaaniintiisa dhowro dastuurka dowlad goboleedka Puntland iyo qawaaniintiisa dhowro xilka la ii dhiibay daacadnimo u guto xilka la ii dhiibana daacadnimo u guto dalka iyo dadkiisana lillaahi ugu adeego dalka iyo dadkana lillaahi ugu adeego wallaahi liyaakubu billaahi liyaakubu tallaahi kowdii bishii Agosto sanadkii 1998 ayaa lagu dhawaaqay dhismaha maamulka Puntland waxaana hal mar la wada arkay iyadoo ay dhinac isu raaceen madaxweynihii caasimadii wasiiradii ugu badnaa iyo sidoo kale baarlamaanka tiradii ugu badnayd haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay noqonaysaa sababta ay beelihii kale gaar ahaan beelihii SSC oo iyagu qaybta ugu weyn ka qaatay dhismaha maamulka Puntland ay uga tanaasuleen isla markaasina ay u ogolaadeen sadbursiga intaasi leeg arrintaad sheegayso waa arrin jirta way iyo wali waa waxyaabo kale oo ka sii badan waa arrin jirta dadka goboladan degan waxay u hamuumnaayeen oo jeclaayeen oo rabeen dawladnimay doonayeen arrinta ay kaga tanaasuleen waa daacadna way ka ahaayeen in Puntland ay noqoto maamul rasmi oo jira laakiin gool darro arrintu dhinacii kale ka soo jeesatay dhinacii kale bay ka soo jeesatay absolutely saasan dhihi kara dadkanu daacad buu ahaa maantadaasa boqolkiiba 60 haddaad weydiiso ay wali Puntland jeceliin sababtoo ah rabitaankii iyo jacaylkii ay u qabeen baa lumay 60 haddaad weydiiso qaar ba haddaad oon maxaad ku taageertay wax badan oo ku sheegi karaan ma jiro kaliya uun waxa ugu badan ay oran karaan waxa weeyaan de waa uun maamul jacayl taasi wax kale oo iyaga doortay dadku kuwan ma dooran lama dooran kuwan qasab bay ku joogaan meesha qasab bay ku joogaan laakiin kuwani Puntland dadka doortay oo samaystay exactly rabitaankoodina wali way ku taagan yihiin badidoodu most of them laakiin sababa badan oo ay sharxi karaan oo ay ugu simid ahaada hal tuulo ay kamid ah maamulka Puntland ma joogo maantadan aan joogno horena laascaanood kaliya u joogi wax la taaban karo laascaanood buu joogi meel kale oo cid joogtay male degmooyin lama tagin tuulooyin lama tagin deegaan kale oo la tagay ma jiro xoogaa yar oo ciidan oo buuhood laga sameeyay waa la sheegi jiray wax yar oo naf layno cirgaabo iyo meelaha degmooyinka laga sameeyay waa la sheegi jiray wax kale oo ay sameeyeen male maamulka aan ku sheegay Cabdullaahi Yuusuf madaxweynaha ka maamul ka dambeeya Puntland yeelatay ma jiro intii ka dambeysay qabaa'il iyo waxaan dhaamin iyo wax qof haysto iyo waxaan raad lahayn maantadan aynu joogno wali waxa ma jira ciidanka la gaardisiinayo arkiiseen waa reer qura reer kaliya way marba ninka madaxweynaha ka reerkiisu yiraahdaa ii hiiliya intaasa saxaarada gacanta geliso meesha ka tirsanaad dadka kale waa magacuyaal wasiiradan iyo waxaan la idin sheegay Puntland baarlamaanka la idin sheegay waxaan oo dhan waa wax iska magac wax jira ma waa wax uu magac ahaan u jira laakiin rasmiyan wax jira ma marka ma jirin shirku maba ahayn bashir lagu gorgortamayo ma ahayn shir wax la isku weydiinayo inuu shanta gobol la dhiso oo magaca Puntland la iska wada qaato oo mar hadan xamarna dhisnayn in wax la dhiso baa marka muhiimada la siinay laakiin ma jirin wax gorgora ah oo garasho la'aan ah ma jirin waxa weeye in la muhiimada dhismaha baa la siinay macal dadkii meesha isugu yimid waayo Soomaaliya markaa maamulba ma jirin waa kuwan hadda kuwan Puntland ku faano maamulkii labaad ee ugu hor dhismaan ahayn marka de ma ba jirin wax gorgora ah oo runtii arrimaha noocaas ah ma ba jirin
markiyan calanka dhidibnay masadan guuraynu dhaafnay halkii dheef laga filayay miyaan darababa ka weynay halkii dheef laga filayay miyaan darababa ka weynay majuun baan dhega barjownay maluuliyaan dhaxal ka weynay dhibahana hayaa tarweynaa muddo badan oo maamulka Puntland ku sugnaa deegaamo ka tirsan deegaanada SAC waxaa la isweydiinayaa mar kale maxaa uu ku soo kordhiyay maamulka Puntland deegaanadaasi intii uu joogay maxaase ay ka faa'iideen gobolada SAC dhismihii maamulka Puntland waxay ka faa'iiday markaan hor Ilaahay u hadlo garan maayo muddada Puntland halkan joogtay muddo badan ma ahayn waxa ugu badnaa ay joogeen xogaa ciidan buu ahaa oo jiida hore la gaarsiiyay markii hore oo rabitaanka shacabka ku yimi muddo wax la qabanayeen ma ahayn waxana la sheegi jiray in hay'adaha caalamiga iyo dawladaha dunidu deeqdii ay dalka Soomaaliya siin jireen in xagga Somaliland lagu bixiyo yaa la sheegi jiray xaggana aan waxba la keenin waa sida aanu maqalay inta markay ka soo gudubto heshiiskaas la sheegayo anu waxba kala ma socdo laakiin waxaan ka door bidayaaba dagaal la sheego halkan laguma qabsan waxa lagu qabsaday in deegaankan Somaliland loo dhiibo si loo yareeyo awoodda Puntland ay ku leeyihiin deegaanka kan ay ku leeyihiin rabitaanka ay ku leeyihiin si loo yareeyo nin Cismaan Maxamuud baa markaa maamulka Puntland hayay wuxuuna u qabay oo ku eedeynaya dadka deegaankani inay Cabdullaahi Yuusuf u heeliyeen oo Umar Maxamuud iyo istileen waxa leeyahay Umar Maxamuud iyo istileen nimanka la Cismaan Maxamuud dadka deegaankani inay Cabdullaahi Yuusuf iyo Umar Maxamuud u heeliyeen laakiin dadka deegaanku taa bedelkeed waxay u heeliyeen maamulkii jiray bay u heelinayeen Umar Maxamuudna wax gooniya uma hayn Cismaan Maxamuudna wax gooniya kama haysan arinta isu dhiibka nimankaasna waxba ka soo qaadi maayo anigu waxa meesha tan waxaan qirayaa in dadka luhuna dayacay maamul ay isku haleyn karaan aanu gacanteeda gelin ayaan qirayaa ninkii intaan la qabsan ugu horeeyay sarkaal qoladan dhulka Puntland gaar ahaan beesha ma jirteenaya sarkaal uu Maxamed Cabdi Xash u soo diray oo dhalinyaro ahaayo in afguud loo oran jiray inuu dhintay Allah yarxamo moojiye in kale ayaa wuxuu ka saaray goobihii dadweynaha ee dawladdu ku shaqeyn jirtay dawladda dhexe buu reer ka saaray dhulkii saldhigyada iyo meelo ka saaray meelo wuxuu kaga saaray oo yiri dawladda ku shaqeynaysa saldhiga iyo MCH hay'ad action aid loo oran jirtay dhistay iyo adigu fikirka dhulkan dawladdu dhismihiisan in dawladdu leedahay oo dadweynaha ku jira isiisin sida aad xamar ka jirta intaas ka faa'iidaan soo dhan karaya markiyan calanka dhidibnay masadan guuraynu dhaafnay halkii dheef laga filayay miyaan darababa ka weynay halkii dheef laga filayay miyaan darababa ka weynay majuun baan dhega barjownay maluuliyaan dhaxal ka weynay dhibahana hayaa tarweynaa maxaa odayadii ka dhiribshay haweenkii maxaa dhameeyey maxaa dhalinyaraadi laayay dhallankii maxaan u weynay maxaa dhan walba u basbalshay guryiya wada dhisaynay